تعالوا إلى الخير يا مسلمون، تعالوا لننجح دنيا ودين، تعالوا لنعبد. diintu si toosay midnimo inoo fartay haddaynu muslim nahay. si toosaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka inoogu faraya masalada. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam si toosuu inoo faraya. xadiidka saxiixu muslimka iyo kayrkiiba asalkiisii uu ku yaallo imaam albukhaarina fii kitaabi hadab almufrad ku soo aroorinayo. sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamay wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam in allaha yardaa lakum halaata, waar ilaahay saddex buu raalli idinka yahay baa layidhi, wayakrah lakum halaata, saddexna alla waa idinla necbiye subxaanahu wa tacaala. fayardaa lakum an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shaya, ilaahay tawxiidku raalli idinkay inaad keligii caabudaan oo idan cidna ku lamaanayn. shayga labaad ee ilaahay raalli idinkaya waxa weeyaan baa layidhi waan tactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu, ilaahay xadhigiisa inaad wada qabsataan oo aydan ku kala tegin. riwaayaadka qaarkood ba waxay ku soo darayaan oo ku sadaxaynayaan wulaatul amriga in la ateeco. wuxuu kaloo nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam saddexna waa laydinla nacay. maxaa laynala nacay? wayakrah lakum qiila waqaal, waa la yidhi iyo hadalbadnida ilaahay idinla nacay. hadalka ku tira kuteentee tirada badan leh waa waxa mujtamaca fasaadiya. dhegtaadiyo afkaagu inay isu dalooshamaan waa ceeb. soomaalida maanta joogta dhegtooda iyo afkooda isu daloola, wuxuu maqlaba uu ku warramay. waa la wadaa uun fadhi ku dirir iyo waxbay u bixiyeen, waa la wadayaa saan baa la yidhi. markuu kaa soo horbaxay waagu baryuu ka odhanaya maxaa la yidhi, war buu dayday. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya qofka muslimkii inuu qof jaadan noqdo, qof dadaalayo noloshu ka dhabtay inuu noqdo, qof waxa aan waxba tarin ilaaba, waxa aan macnaa samaynin. waxaa ka mid a maxaa la yidhi, qiil waqaal, tan baa la yidhi, saan baa la sheegay, waxayna dhaaftaan buu nabigu leeyahy. iyo wa kasrati su'aal badnida iyo maalka in la khasaareeyo. idan nusuustaasi si cad waxay inoo faraysaa midnimo. waxaa jirta nusuus si dadban midnimada inoo faraysa. waxayna faraysaa wax la'aantood haddii iyaga lala yimaado midnimadu ay suurtoobayso. waxyaabaha qaarkood haddii la sameeyana midnimadu aanay suurtagal ahayn oo la reebayo. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy ama nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina tilmaamaya laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu wakunuu cibaad allahi ikhwaan walaa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fawqa 3 ayaam. xadiidka asalkiisu saxiixu muslimku ku yaala, imaamu axmedna wuu warinaya. nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam war haysu cadhoonnina oo ha isxaasidinina oo ha isu dhabar jeedinina. xadiid kale nebigu wuxuu ku tilmaamayaa inaan la iscaayin, inaan la ismaagin. qur-aanku wuxuu tilmaamayaa walaa tanaabasuu bilalqaab, inaan magacyada xunxun la isugu yeedhin, inaan la isxamanin, inaan la isjaastuusin, inaan la isxaqirin. nebigu wuxuu leeyahy sharba waxa kuugu filan walaalkaaga kale muslimka inaad xaqirto oo liiddo, ama hantiyari ku liid, ama reerkiis iyo qabiilku ka dhashay ku liid, ama adigoo ka yaro qorqoranoo moodaya inaad ka qurux badantay ku liid. waxaad doonto ku liide liidashay ama maalaad ka badantay kulli bixasbi mri'in min ashar, qofka waxaaba shar ugu filan baa la yidhi an yaxqira akhaahu lmuslim, walaalkiisa kale muslimka inuu liido. waxaan oo dhan maxaa loo nahiyey? waxaa loo nahiyinayaa waxaa la rabaa wakunuu cibaad allahi ikhwaan. waxaani walaalnimaday tirtiraan. mujtamacu hadduu caafin noqdo, mujtamac dhexdiisa iska haysto uraya hadduu noqdo ma wada deganaan karayo. haddii la isxamanayo, laysdulminayo, laysxaqirayo, laysmaagayo, laysdilayo, laystacaayadaynayo, dee wada noolaanshii wuu adkaanaya. haddiise aanay waxa kani jirin, xagxagashada haddii la waayo waa la wada noolaan karaya. sida daraaddeed baa islaamnimadu qasdiga waxa loo socdo qura laynama faro, ee waxa kaloo layna fara wasiilada lagu gaadhayo. waxa kale midnima lagu faray, laakiin waxa kaloo lagu faray midnimada wixii lagu gaadhi lahaa. waxa kaloo lagaa reebay midnimada wixii waxyeelaya dhaawacaya dhammaanteed. insaanku min tabcihi waxa ka mid a inuu cadhoon karo, laakiin waxa lagu yidhi 3 maalmood jaanisa baa lagu siiyey. basharinimadeenna ilaahay uu yaqaana subxaanahu wa tacaala. 3 maalmood waa muddo aad ku cadha burburi karto. 3 maalmood ka badan baa lagu yidhi inaad cadho ku maqnaato oo walaalkaad ka hijroto ama bannaana. sanad haddaad afka buurtanaad oo dhiiggiisa daadiyay la mid tahay buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. xadiidka abi daawuud uu warinaya saxiixa, nebigu wuxuu ku tilmaamaya hajruka akhika sana ka safki dami, walaalkaayo aad sanad cadha iyo afbuur kaga maqnaataa waxay la mid tahay buu nebigu leeyahy dhiiggiisa aad qabtay. dhiig muslim wax fudud maaha. cadho muslim laga cadhoodo laga dudaana wax fudud maaha. sidaa awgeed waxaa lagu faray inaad walaalkaaga muslimkaa walaalkii ahaato. waxaa layna faraya inaynu walaala noqonno. walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaءahum albayinaat waulaa'ika lahum cadaabun cadiim. waar ha noqonina baa ilaahay leey kuwii kala tegey ee iskhilaafay markii bayinaadka cadcad ee rususha ay sidaa yimaadeen. waxyiga alle intuu yimi haddana iyagoo og oo kitaabkii dhex yaallo kala yaacay kuwa ha noqonina. haddaa kuwaa noqotaan maxaa dhacaya? waulaa'ika lahum cadaabun cadiim baa ilaahay. kuwaasi cadaab kulul bay leeyihin. waayo cadaabka noociyaadka ilaahay wuxuu cadaaba waa tiro badan yihin. qur-aanka ilaahay wuxuu tilmaamayaa cadaabka qaar ka mid inuu cirka ka soo dego, torneedo lagugu soo dejiya, roob lagugu soo dejiya,
balaayo kale samada ka soo degtaya qabow soo degiya kulayl soo degiya waa nooc min alcadaab lagugu halaagi karo waxa kaloo cadaabka ka mid ah ilaahay leeyahay inuu dhulka ka soo baxo waxa kaloo cadaabka ka mid ah ilaahay leeyahay wax ku cadaabo inta la idin kala qaybiyo in madaxa la isu kiingeliyo aayad kale ilaahay wuxuu leeyahay qul huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum cadaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd unzur kayfa nusarrifu alayati la'allahum yafqahun ilaahay wuxuu awoodaa baa la yidhi inuu cadaab korka idinkaga keeno ama inuu dhulka ka soo saaro aw yalbisakum shi'a ama intuu kooxa idinka dhigo wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd qolada kale qadhaadhkeeda inuu dhadhansiiyo baa la yidhi subxaanahu wa ta'ala wata madaxa la isu keen wada sulay qolada kale qadhaadhkeedii la dhadhansiiyey unzur kayfa nusarrifu alayati la'allahum yafqahun baa ilaahay bal eega aayaadka sidaan idinku balballaadhinaya baa ilaahay waxaa mudantiin inaad wax garataan